waxaynu ku jiray baan filayaa xaaladaha taagan waxaa halkaa ku harsan sicir bararka Soomaa wara la qoro dawladdu haday qaboojiso sicir bararka way markuna keento markab raashina iyo markab shiidaala mar kaliya haday keento sicir bararka soos buu dhacaya ninka baamushirkee keenaya sicir bararka cirka qabanaya markuu ogaaday in dawladdu raashin keentay dib u badalacayo ee waxaan oranay dawladda sanadkan abaara jirey markab raashin iyo markab shiidaala keen haddii waxba ka qaban karin dadkii way dhaga beeleen sicir bararkii baamushirka hoos ma dejinayo kor haddii awood lagu dejiyo ama sicir lagu gooyaan jirin dawladdu dawladdu keentay way markab raashina maanta dadku wuxuu afduuban yahay kooxo shidaalkii dad baa keenaya leerkii sector baaska loo dad barayfada ayaa leh maciishadii dad barayfada leh waxa la yiri baac mushtarigu waa xor wasaaradda u qaabilsan marka baac mushtariga hadalkeedu wuxuu ku soo koobmay Ukraine dagaal baa ka dhacay caalamkana waxa ka ay qiimihii inta ma dhaafinaya marka inaan ku soo ururiyo waxa loo baahan yahay hay'adaha dawladda ee khusayso haday tahay wasaaradda haday qorshaynta tahay haday maaliyadda tahay haday ganacsiyada tahay iyagoo la kaashanaya dadka aqoonyahanka ah ee dhaqaalaha yaqaana waxa leeyahay intervention ku sameeyaan ha fargeliyeen $50 ba qofka dhowr rufuucyo badan u goynaysay waxaan ku raadayay oo uu xoogaa ku yar noolaanay bisha ilaa 20 maalmood meelaha ilaa 15 maalmood dadka dan yarta $50 maanta uma goynayaan ba waxaan ku raadayay gadbad sonkor ay noqdeen ba $50 xoogaa geerarashka ku qaadanay qoysaska dan yarta marka waxaan leeyahay iyaga ganacsatada ummadda u naxariista ilaahay si inoogu naxariisto waxaan xasuusnahay aniga shakhsigayga nimka idin la hortaagan waxaan wax ka iibsaday baqaar baan wax ka iibsaday alaab ka iibsaday maalmaha ka mid ah markaan 5 maalmood 6 maalmood meelaha ka maqnaa baan ku soo noqday alaabtii baan iibsaday qiimihii uu iga siiyey qiimo ka duwan buu iga siiyey markaasaan waxaan weydiiyey war maxaa ma kordhay ee bedelay intaas aad iga siisay maalintii hore markaasuu isbedel baa dhacay marka maalin saddexaad baan ku soo noqday markaasuu intii kordhiyay haddana markaasaan idhi waxaan de suxa maaha aabtan ka iibsaday waa isku mid waa meel bay wada saaran tahay dukaan baa waa iska hal dukaana marka waxaan uga jeedaa kelmadda waxaan uga jeedaa nin waliba sixir bararka wuxuu leeyahay adigu kordhi wax kordhi oo waatan la war ganacsato ama yaryarata ama waaweynati ilaahay ka cabsato hadalka waxaan kaga baxayaa waxaan u baahannahay inaynu marka hore wasiirka u yeedhano xaaladda meesha ganacsiga ogaano marka labaad oo uu inagu kordhiyo khibrayna siiyo marka labaadna dee dawladda ka mas'uula dawladdu inay xil iska saarto waxay soo dejinayaan la soo dejiyaan aan daruuri ka dhigano cuneen talacagta adag baa ku baxda findhicilka halka lagu findhiciso lacag adag buu inagu soo galaa findhicilku lacag adag buu inagu soo galaa wax kasta oo aan daruuri ahayn xagga lacagta waxaan oran lahaa hal la joojiyo dawladdu ha joojiso wax kasta oo aan daruuri ahayn waxa alla wixii aan daruuri ahayn si aynu xaaladda ugu gudbino waayo dee wax kasta lacag adag baa la doonaya in lagu keeno waxa kasta lacag adag baa la doonaya in lagu keeno dee si waxaas daruuriga mooyaane wixii kale inooga joogsadaan dawladdu ha xakamayso intaynu ka baxayno sixir bararka iyo abaaraha iyo waxaan laga baxayo waxa laale wixii aan daruuri ahayn ha xakamayso oo ha joojiso gidigeen ha la isugu tago wixii lacagina soo gala lacag adagina soo gala daruurun ha la soo siiso wixii daruuri aan laga maarmaan marka ilbaxnimo qaldantay
ayaa horta qaadkan ayaa keentay sixir bararkan waa ogtiin oo dadka baadiyaha joogay xoolaha la nool ama beeraha haysta wuxuu u soo go'aabay qorsheeyaan oo sanadkaba isku filnaysiyaan dabeetana qorshaha ay samaysteen ilaahayna waa ku asturaa oo way ku noolaadaan oo weligoodba ma baahdaan weliba waxbay bixiyaan oo kii u yimaadana way kii soo maray iyo kii wax soo moodaba way ka taageeraan taasaa dhaqan ahayd tii waa laga yimi magaaladii markii la soo galayna dhaqankii baa khaldamay oo waxa la yiri reer magaalo noqda saas waa taa waxa lagaga baxayaana waxa weeye deeyadoo reer magaalnimada ilbaxnimada la saxo taasu baa saxitaan u baahan oo wax naafaca oo dadkii anfacaya ay isticmaalaan waxyaalaha qeyr naafacana la iska daayo oo diinta islaamku ma ogola inaad waxa qeyr naafaca aad maalkaaga geliso marka waxaan soo jeedinayaa mar haddayna wax soo saar lahayn oo inagu ayna waxba dhoofinaynin ee wuxuu aynu keensanayno wixii aynu u baahanaayba boqolkiiba 99 dibadaynu kala nimaadna wax la waxaan isticmaalno wax kas badana ha noqotay wax walba xitaa tamaandada Itoobiya inooga timaado jaarka marka mar haddayna inagu waxba la soo baxaynin de sicir barar wuu jirayaa marka wuxuu dhan waxay ku soo ururayaan ilbaxnimo inaga khaldantay aan waxna la soo baxno waxaynu haysanana aynu nadaamsano